xalqadii hore waxaynu uga soo sheekaynay reer Caad iyo nabigii loo diray ee Nabi Huud. haddaba waxaa jiray in reer Caad uu deegaankoodu ku dhowaa reer la oran jiray reer Samuud oo ay xigta ahaayeen. reer Samuud sida reer Caad ayay waxay uga ekaanayeen xagga muuqaalka iyo xoogga, sidoo kalena iyaguna waxay caabudi jireen asnaamta, kumana cibri qaadan halaagii ku dhacay reer Caad. haddaba xalqadan ayaynu ku dul istaagi doonaa sheekada reer Samuud iyo nabigii loo soo diray ee Nabi Saalax calayhi salaam. magacayga waa Cali Maxamed, halkanna waa Gob Media. ku soo dhawow xalqadeennii lixaad. Alle subxaanahu wa tacaala ayaa reer Samuud u diray walaalkood Saalax oo nasab ahaan iyaga ka dhashay. Nabi Saalax calayhi salaam wuxuu ka mid yahay durriyaddii iyo farcii Nabi Nuux calayhi salaam, sida Ibnu Kathiir ku sheegay kitaabkiisa qisooyinka nebiyada. abtirsiga Nabi Saalax calayhi salaam waxa uu noqonayaa Saalax ibnu Cubayd ibnu Aasifa ibnu Maasikha ibnu Cubayd ibnu Jaadir bin Zamuud ibnu Jaasir ibnu Iram ibnu Zaam ibnu Nuux calayhi salaam. waxa uu ka dhashay reer Samuud oo dhalasho ahaan qaraabo dhow la ahaa reer Caad. Nabi Saalax intii aan la soo dirin ka hor waxa uu ahaa qof dadkiisa dhexdooda sharaf ku leh. waxa uu ahaa qof xigmad badan oo ay aad u jecel yihiin. qoys laga haybaystana waa uu ka dhashay. magaca Nabi Saalax Allah subxaanahu wa tacaala 9 jeer ayuu ku sheegay quraanka. qisada reerkiisana dhowr jeer ayuu quraanku uga warramay si gaaban iyo si faahfaahsanba. reer Samuud ayaa waxay ku noolaayeen deegaan lagu magacaabo Al-Xijr oo ku yaala dalka waqooyiga boqortooyada Sacuudiga, waxayna u dhaxaysaa labada magaalo ee Madiina iyo Tabuuk. deegaanka reerkan waxa uu ahaa mid leh dooxooyin barwaaqo ah iyo waadiyo biyo badan, kuwaasi oo aan biyuhu ka go'i jirin. maadaama ay dhalasho ahaan isxigeen, reer Caad waxay xagga xoogga iyo dhererka u dhowaayeen. reer Caad waxay ahaayeen dad Alle u hibeeyey quwad iyo lixaad. waxay u talin jireen dad badan oo deegaanka kula dhaqnaa. magaalo madax waxa u ahayd degmo lagu magacaabo Madaa'in. barwaaqo iyo barisamaad ayay ku noolaayeen. waxaa u dheeraa aqoon iyo farsamo iyo ilbaxnimo ay heleen oo ay nolosha u kaashanayeen. waxay ahaayeen qabiil carab ah oo xadaarad fog leh. reer Samuud waxay xirfad u lahaayeen dhisidda guryaha. waxay buuraha ka dhex dhisi jireen daaro dhaadheer. awooddooda jir ahaaneed ayaa u suurtagelin jirtay inay dhagaxyada buuraha qodaan kadibna guryo ka dhex sameeyaan. dhismaha guryahaasi dhinac waxay ka yihiin buurihii ay ka naqshadeeyeen, dhinaca kalena waxay ka yihiin aqallo qurux badan oo dhismahooda si fiican loo farshaxaneeyey. qur-aanka marka lagu tilmaamayo guryahaasi ereyga loo adeegsaday wuxuu yahay naxti, oo marka af Soomaali ahaan loo bedelo noqonaysa farshaxan. guryo kale oo ereygaasi la raacshay qur-aanka laguma sheegin. reer Samuud uma mahadnaqin nimcadan iyo awooddan Alle ku manaystay. kibir ayay ka qaadeen. waxay ahaayeen kuwo aad u dulmi badan. arrinta ugu sii daran ayaana ahayd in sidii reer Caad ayay la yimaadeen shirki. dhagaxyada ayaa asnaam ka qoran jireen si ay u caabudaan, kaalmana u weydiistaan Allah subxaanahu wa tacaala, oo sifooyinkiisa ay ka mid tahay inuusan dulmiyin addoommadiisa, intuusan qoom halaaginna uu u diro qof iyaga ka mid a si uu u gaarsiiyo farriinta xaqa ah. ayaa Nabi Saalax calayhi salaam ayuu u doortay inuu farriinta Alle gaarsiiyo qoomkiisa. Ibnu Kathiir oo sharaxaya aayadda 73 ee suuratul Acraaf ayaa yidhi waxay mufasiriintu isku raaceen reer Samuud oo maalin ku shiraya goobtooda shirarka uu halkaasi ugu yimid rasuulkii uu Alle u soo diray ee Saalax calayhi salaam. wuxuu ugu yeeray inay Allah kaliya caabudaan, ka dheeraadaan shirkiga iyo asnaamta. reer Samuud oo ahaa dad aad u kibir badan sidii reer Caad ayaa jees iyo aflagaado markiiba ku bilaabay Nabi Saalax. waxay yiraahdeen waxaa tahay qof waalan oo sixran. Nabi Saalax calayhi salaam kama quusan inuu dacwadda reerkiisa la dhex taagnaado. markasta waxa uu xasuusin jiray wixii qabsaday reer Caad oo ehel iyo xigaalba la ahaa, sheekadoodana ay maqleen. waxa uu xasuusiyey in Alle subxaanahu wa tacaala uusan ka jeclayn reer Caad. hadday jidka shirkiga ku sii jiraanna ay mari doonaan jidkii halaaga ee reer Caad la marsiiyey. waxa uu la tegay dhambaal uu xagga Alle subxaanahu wa tacaala uu uga waday. waxaa loogu sheegay caqiidada hagaagsan iyo xagga hanaanka nolosha ee habboon, balse in yar mooyaane intii badnayd warkiisa waa ay diideen. Nabi Saalaxna waxay si bareer ah ugu dhaheen dhexdeenna waxaad ka tahay dayro iyo mid la nacay. markii ay ka quusteen inay ka hor istaagaan Nabi Saalax farriintii uu soo gudbinayay, ayay madaxyaweyntii reer Samuud ku tashadeen inay xujeeyaan Nabi Saalax calayhi salaam. waxaa dhacday in odayaadii reerka ay Nabi Saalax ku yiraahdeen haddaad buurtan dhagaxa ah nooga soo saartay hal geel ah oo sifooyinkeedu sidaas iyo sidaas yihiin, ayna riman tahay, cunugeediinu sifooyinkaasi leeyahay, waan ku rumaynaynaa. markaasuu Nabi Saalax ku yidhi bal ka warrama haddaan idinka yeelo waxaad doonaysaan oo aan idin siiyo, ma aaminaysaan? waxay yiraahdeen haa. Nabi Saalax calayhi salaam Alle subxaanahu wa tacaala ayuu baryey inuu siiyo calaamadda ay ku xujeeyeen. markaasuu Alle subxaanahu wa tacaala buurtii dhagaxa ahayd amray inay soo saarto oo ay dhexdeeda ka soo baxdo hal riman oo 10 bilood xaamilo ah oo leh sifooyinkii ay weydiisteen. markii ay hashii soo baxday, yaab iyo amankaag ayay afka qabsadeen. kadibna Nabi Saalax ayaa ku yiri tani waa hashii Alle ee daaya ha daaqdo arliga Ilaahay, xumaanna ha u geysanina si uusan cadaab idin haleelin. in yar oo iyaga ka mid ah ayaa Nabi Saalax rumaysay, intii kalena kibir ayay ka sii qaadeen.
iyo inay dhahaan waxani waaba sixir weyn. Hashii waxay dhashay nirig. Nebi Saalax ayaa u sheegay in hashu ay la socoto shuruud ah in hashu maalin ceelka cabto, inta kalena xoolahooda ay cabaan, in hashu ay daaqdo meesha ay rabto, cidna aysan dhibaato u geysan. Way aqbaleen. In muddo ana sidaasi ayay hawshu ku socotay. Ceelka biyihiisana sidaasi ayaa loo kala qaybsaday. Hashana maalin waa la waraabin jiray, maalinna waa ay daaqi jirtay. Maalinta ay cabaysa biyaha looma ogolayn inay dhaansadaan biyaha ama ay cabaan. Kadib waxa ay weydiiyeen rasuulka Ilaahay waxa ay cabayaan. Maalintan loo ogolayn inay dhaansadaan ceelka, waxa loo tilmaamay inay cabaan caanaha hasha, waxaana ku filaan jirtay caanaheeda maalintaasi oo dhan. Muddo kadib ayuu kibirkoodii tusay inaysan macquul ahayn in hal neef oo geel ah ceelka maalin dhan loo daayo. Odayaashii reer Samuud ayaa shir isugu yimid, waxayna isku raaceen inay hasha dilaan oo ay isdhaafiyaan si aysan ugu ciriirin biyaha. Waxaa hawsha dilka loo xilsaaray nin la oran jiray Qidaar bin Saalif oo ahaa mid isku darsaday shar iyo xoog badni. Qidaar markii hore arrinta dilka hasha waa ka cagajiiday. Duqaydii ayaa u diray haweenay aad ugu fiicnayd gubaabada, ninkeeduna madaxda reer Samuud ka mid ahaa, waxayna u ballan qaaday haddii uu fuliyo arrinta dilka hasha in ay siin doonto afarteeda gabdhood mid ka mid ah midii dooqiisa ah. Qidaar wuxuu aqbalay qorshihii. Wuxuu diyaarsaday 8 nin oo hawsha la fuliya. Qidaar oo ay la socdaan 8 kale ayaa u soo dhaqaaqay dhankii hasha. Ugu horeyn Qidaar ayaa hasha faylaha gooyay, kadibna warankii ayuu ku dhuftay hasha ilaa ay dhulka ku dhacday. Kadibna intoodii kale ayaa warankii iyo mindidii hasha ku bilaabay ilaa ay jirkeedii cadcad u gooyeen. Markii hashii la dilay, nirigteedii waa ay carartay, waxayna fuushay buur dusheeda 3 jeer ayayna qaylisay. Nabi Saalax ayaa ku yiri waxaad sugtaanba waa 3 cisho. Ma aysan rumaysan ballantii Nabi Saalax, balse kibirkoodii ayaa mar kale tusay dhagar kale. Waxay ku dhaarteen inay dili doonaan Nabi Saalax alayhi salaam. Kadibna waxa la qorsheeyay sidoo kale in la dilo Nabi Saalax, hawshana ay fuliyaan isla 9 nin ee hasha dilay, si arrinta uu wado oo dhammi ay halkaas ugu istaagto. Markii ay damceen inay dilaan ayaa Eebba u soo diray dhagax weyn oo burburiyay intii rabtay inay dilaan nabiga Alle, waxaana ku dhintay goobtaasi 9kii dhagar qabe ee ka dambeeyay dilkii hasha iyo isku daygii fashilmay ee ay ku doonayeen inay ku khaarijiyaan Nabi Saalax alayhi salaam. dadka intiisa kale ma toobad keenin, balse si kibir leh ayay ugu yiraahdeen Nabi Saalax noo keen cadaabka aad hayso. Markii maalintii dhamaatay, reer Samuud waxa ku bilowday ciqaabtii Alle. Maalintii koowaad ee ballanta loo qabtay, wajiyadoodii waxay noqdeen sida huruudda ama jaalaha. Maalintii labaadna wajiyadeedu waxay noqdeen midab guduud ah. Maalintii saddexaadna wajiyadoodu waxay noqdeen madow. Waxay seexdeen iyaga oo aad u walwalsan oo aan aqoon waxa ku soo wajahan iyo waagu sidii ugu bari doono. maalintii afraad markii qorraxdii ay soo baxday ayaa waxa cirka kaga yimid qaylo iyo dhulka oo ku gariiray. waxa asiibay cadaab daran oo kaga yimid xaqii Alle subhanahu wa ta'ala. qof walbana halkii uu joogay ayuu ku nafwaayay. Nabi Saalax alayhi salaam iyo intii rumaysay Alle ayaa badbaadiyay, waxaana lagu amray inay u guuraan dhanka Shaam. raadadkii iyo guryihii ay ka tageen reer Samuud ayaa ah kuwa ilaa maanta muuqda. buurihii ay guryaha ka qodeen iyo dhismayaal ay xardheen ayaa weli ku yaala deegaanka Madaa'in Saalix ee dalka Sacuudiga. dhismayaashii reer Samuud sida uu Quraanku inoo sheegay 2 qaybood ayay ahaayeen. qayb dooxooyinka ayay ku yaaleen oo waxay ahaayeen qasriyo oo waa dhismo la baabi'iyay. qaybta kalena waxay ahaayeen guryo deegaan ah oo ay ka naqshadeeyeen buuraha, waana kuwa ilaa maanta baaqiga ah. Allah subhanahu wa ta'ala ayaana uga tagay in calaamad u noqdaan kuwa ka dambeeya. ibnu Isxaaq wuxuu yiri rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee markii awal xijr marayay uu ka degay dadkana ceelkeeda ayay biyo ka soo dhaansadeen. markaasuu rasuulku nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ku yiri biyaheeda waxba ka cabinina, salaadna ha uga weysa qaadanina. sidoo kale ibnu Haashim wuxuu yiri rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee markuu al xijr marayay maradiisa ayuu wajiga saaray oo ku daboolay, hashiisiina waa u dhaqaajiyay. kadibna wuxuu yiri hagelina guryaha kuwa dulmiga falay idinkoo ooyaya mooyaane cabsi aad ka qabtaan inay idinku dhacaan wax la mid ah wixii iyaga ku dhacay oo kale. بلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما